bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh halkani waa wadani t v iyo barnaamijyadii aan noogu barateen ee ahaa in aan dhabta idinka saaro xaqiiqda siyaasadeed ee soomaaliya. maantana waxaan ugu magac daraynaa barnaamijkani qarax iyo qori qarnigiisii ugu dhammaaday soomaali qaran bay noqon. qarax iyo qori qarnigiisii ugu dhammaaday soomaali qaran bay noqon. daawasho wanaagsan akhyaarta sharafta lahay. الدوينة وعنقول عطلنا كل مدى الدوينة ونرجع كل مدى وقرن الصومالية سبت فيها بعض الكارع bismillaahi raxmaani raxiim. halkana waxaan markhaati idinkaga dhigaynaa barnaamijka 10 bilood ka hor aan sheegnay ahaa in ciidamo qaramada midoobay ee afrikaan ahi ay kasoo geli doonaan saddex geesoodka loogu talagalay al-shabaab in laga baabi'iyo dhinaca kenya, etoobiya iyo soomaaliya. muqdisho ciidamada lagu aruurinayo ciribtarka al-shabaab loogu talagalay ayaa horsideeda banaanba waxaan dadka beraynay soomaaliya yaa xukuma, yaa madaxka yeesatiisa noqon. dhegeysa bon daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha wadani t v la xiriiro daawasho wacan oo wanaagsan. waxaan caawa idin gabagabeynaynaa barnaamijkii aan idinku talagalay ee ahaa dowladda dhabta waase goorma oo caawa aan idin gabagabeynayo. marka hore aan idin xasuusiyo koox saddexaad ay soomaalida ogeyn ayaa qabaa in aan xasuusiyo oo u bixiyey ubuxda soomaaliya. macnaheyduna waxa weeye haddii qofku sirtaada uu galo oo sirku sirtuud lagu siiyo uu ka adag yahay waxaana lagu sameynayaa wax kasta oo la rabo, waxaana noqonaysaa adoo dhan qof waysan oo hulaysan. soomaalidu waxay ahayd dad sirtooda aan la geli karin lana haynin, sidaa awgeedka waxay gacanta sirta u gashay golaha ammaanka iyo qaramada midoobay ay hogaaminayaan galbeedka, waxayna xulfuliyiin u ah bariga africa. sidaa awgeed markaan isku soo wada duuba ayaan magaca waxaan u bixiyey la yidhaahdo ubuucda soomaaliya, oo micnahayga ay tahay in soomaaliya iyadoo ay maamulaan kay rabaana ay noqonayso kay rabaana ay ugu talagalayaan. maruu madaxweynaha booqanaya daynile ayuu sheegay in uusan wax war ay ka haynin ciidamada kenya ee iska soo galeen soomaaliya, taasi oo ku noqotay wejigabax caalamka oo idil. soomaalida horey ayaa idinkugu maamaaqay oo macnahayga waxa weeye waxaan u bixiyay isma dhaantay dhasheedu way tegaysaa. xilligii ay ku kashifmeen oo ay soo saxiixeen 2 sano 1 sano inay haysanayaan soomaaliya, ugandana lagaga soo saxiixay labada shariif. wuu ogyahay shariifka inuu tagayo oo uusan tegaynin. golaha ammaankana waxay ka go-an tahay inuu soomaaliya amniga oo dhan gacanta ku dhiga sidii la beeriyo kale. kadibna dadka shacabka la yidhaahdo isu soo sharaxa cid alle ciddii aad idinka danaynaysaan ayaan xukunka idinkugu dhiibaynaa. markaana xisbiyada ay wateen oo lacag loo soo dhiibay ayaa hooshooda ay noqonaysaa. dowladda rasmiga ee soomaaliya ka dhalanaysana wataa shariifka oo hadda aada u walaacsan ayaa moodaa inuu noqday geed neef qalan geedkama u abto, isagoo og marka al-shabaab laga soo takhaluso isagana inuu ku xigo oo macnahayga uu yahay ninka qeyrkii loo xiro adigana soo qoyso. shariifka taa ayuu rabaa inuu macaaridyo kala samaysto, baloo haddana fallaagiyo dib u galo dagaal kalento iyo olola kalento. taasina macnaheeda waxa weeye hadduu isku dayo ama uu sameeyo wuxuu marayaa halkii uu qadaafi maray oo kalento. soomaaliya golaha ammaanka cid ay maanta kala tashanaysa ma jiraan. intii hore ee laga hortegi karay ayay ahayd, haatana waxa weeye ubuucda soomaaliya xukunkana iyaga ayaa la wareegayo. sida awgeed waxaan annagana sameynay ururka dhalinta qaranka soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DQS. waxaad kala xiriiri kartaa facebookyada waa soomaali weyn oo dhalinyaradii si SYL oo kale ay uga soo baxdo, oo xilligaasina annagana noqono kuwo SYL kaalinteedoo kale kasoo baxo kooxahan la watana darka aan raacino. sidaa awgeeto dowladda soomaaliyana waa kuwa halkaa ay ka dhalan doonto ee dhammaadka sanada 12 ilaa 13 2000 ay hadduu ilaah yiraahdo dhalan doonto. haddaba dhalinyarada soomaaliyeed aqoon-yahaninta wadaniyiinta maanta waxay ku midoobeen pageka Facebook ahi dhalinta qaranka soomaaliyeed
oo aad kasoo geli karto soona aana soo sayn garayn karto sidaa ayaad noqon tahay xubin macnaheedana waxa weeye in la helo mar kale mowqif iyo mabaadii soomaali guud oo dhalinta soomaaliyeed ay matasho kaalintay aswaal oo kale kuwan shariifka iyo asxaabtiisa iyo waxaan oo dhan way tagayaan waana laga takhalusayaa hadduu diiday iyo hadduu yeelinba sanka ayuu ka duran yahay soomaaliyana waxaa ka tirso kooxahan aan u bixiyo ubuucda soomaaliya si aad tvgayga hore ugu aragteen dadka wadani tv la socdana way arkaan wax alla wuxuu wadani tv uu sheegana isha laga maramarto haatan waa xilligii aan u bixiyey barnaamijkana ugu magac daray qori iyo qarax qarnigiisa way tageen soomaalina qaran bay noqon hamoogaan jimcaha soo socda ayaan idinta fatirayaa kala soo xiriir wixii faahfaahin ah dhalinta qaranka soomaaliyeed ee facebook ah mahadsanidin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh